xaaskayga one day ma shaqo tegin in her life ilaahay saas ilmahay ku badbaadiyey gurigii fadhidaa ilmahay anoo usoo shaqeeya guryo Afrika kama aanan dhisanin malihin wax guryo ana malihin laakiin ilma ilaahay noo badbaadiyaan leena ما شاء الله الله ما حفظهم we want inaan waxyaabaha success-ka ah oo dadku ay ku success gareeyeen in la isu sheego absolutely la yiraahdo war lacagtan iyo guryahan la dhisay iyo waxaan waqtiga la gelinayo ilmaha ka muhiimsan Sheekh Mustafa waxaan ka dhageystay khayr Allah siiyo aadna aan u dhageysto waxaan ka dhageystay qof la dhisaa ka muhiimsan guryo la dhiso cunugaagu inta 20 guri inta dhisto hadduu cunugaagu ma taqaana fail gareeyo gurigan baas cibaada mujanna ku galaysa gurigan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa kugu ciqaabaya ilmihii inta banaanka aad keentay aad dulmisay tan ugu dambayso aan rabo oo tacliiqiga waxay tahay annaga problemkana haysto waxa waaye family waxa naga dhumay family value-ga naga dhumay father ma jiro u fiirsada ma xalan waxaan dhageysanayay nin madow ah oo African American ah baan dhageysanayay wiilkiisa bullying lagu sameeyay iskuulka bullying lagu sameeyay waxa la yiri gaan waxaan ku yiraahdaa qori wiilkaagu gacantu saa dhahay baa leeyahay markaas serious u qaatay it took serious iskuulkii buu tagay wuxuu waxaan rabaa cunugayga saan la sawirkiisa in la ituso hawshu waxay gaartay arintii in kulli been noqotay cunugiis wuu ku safe gareeyay wuxuu yiri waxa la rabay in lagu bilaabo cunugayga in lagu bilaabo oo lagu dhameeyo inuu criminal noqdo aabaha marka aabaha Soomaaliga ah oo anigu aan ugu horeeyo oo laga yaabo inaan iskuulada aanan tagin cunugeena maxaa meeqa jeer wax laga soo sheegaa waaba laga yaabaa xaaska inaan challenge gareynayno dagaalo kale ku jirno oo ay kibirtay iyo maxaan ku iraahdaa ii sheegeen America iyo moodo mataqaana iyo baqdin gabdhihii laga baqayo oo aan lalaba hadli karinba haddii laba kalmood tiraahdo inay xirtaa rabtaa waa cararaya responsibility-giisa oo dhan wuxuu ku soo ururtay inuu cararo because haddiisan hooyaday ilmuhu ay arkin aabaha guriga ku nool oo isku faraxsan oo hadalla macaan isdhahaya oo guri fiican ka soo kacaya oo cunno wada cunaya oo wada karsanaya hadduusan hooyaday aabaha cunugan wuu dhageysanaya ilmahan wayna daawadaan they are watching us abartii xanaaqsan oo cirka marayso oo waxaan ku iraahdaa biilal iyo problem haystaan Afrika laga soo wacay iyo aabihii iyo problemo kala haysto asna ma taqaana rag iska dhicinayo qoriyo gadanaya oo reer hebel inta ma taqaana reerkooda ku soo duuleen raba inuu isdifaaco oo ma taqaana wuxuu haystay wuxuu u diraya qabiil iyo dagaalkiis u diraya ilmihii marka way dareemayaan inay dhexda ka baxaan annaga marka waxaan rabnaa in arrin serious ah inaan joogteyno oo aan u joogteyno number 1 sidaan isu qabno waaba khalad Soomaali hadaan that's what I believe aniga the way aan isu qabnaba khalad waayaba guurkaba khalad baan ka fahamsanaa ummada kale aan u shaqeynaa reerkeena iyo gurigeena priority nooba ahanba waxa priority nooba hawla kale marka waxaan warkay ku soo gabagabeynaya waxyaabo badan baa naga khaldan oo u baahan in debate badan aan ka sameeyno